munaasibadan oo ay mid si weyn loo soo agaasimay looguna dabaaldegay sanad guradii 25aad ee ka soo wareegtay dib u soo noqoshada madax banaanida Soomaaliland ayaa lagu qabtay barxadda hore ee aqalka madaxtooyada Soomaaliland waxaana kala qayb galay madaxweynaha qaranka Soomaaliland oo wehelinayay marwada madaxweynaha Soomaaliland Marwa Aamine Wari Sheekh Maxamed Jirde golayaasha qaranka ee kala duwan sida goortida wakiilada gudoomiyaha maxkamadda sare golaha wasiirada wufuud kala duwan oo ka soo beesha caalamka madaxda axsaabta kala duwan ee qaranka barasaabka gobolka Maroodijeex maayirka caasimadda Hargeysa mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo kumanaan kamid ah shacabka ku dhaqan caasimadda Hargeysa madashan ay xafladu ka socotay waxa gaada ciyaar ku maray xuskaasi dhammaanba ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaaliland leeyahay sida ciidamada militariga booliska asluubta ilaalada xeebaha wasaaradaha kala duwan ee dalka hay'adaha madaxa bannaan dawladda hoose caasimadda Hargeysa iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland waxaana si gaar ah uga dhex muuqday dhammaanba jaamacadaha dugsiyada sare kuwa dhexe kuwaasoo ardaydu ay muujinayaan sida ay hiil iyo hooba ula barbar taagan yihiin jiritaanka iyo madax banaanida qaranka Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo ugu horeyn munaasabadaasi ka hadlay ayaa hambaliyo iyo bogadin ballaaran u diray shacabweynaha Soomaaliland sanad gurada 25aad ee ka soo wareegtay munaasabadda qarannimada Soomaaliland ee 18 May ugu horeyn waxaan hambaliyo bogadin ballaaran hawada u marinayaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliland meelay joogaanba xuska 25 guuradii munaasabadda qarannimada Soomaaliland ee 18 May ruubi qarni ayaa maanta laga joogaa markaan la soo noqonay madax banaanadeedii inaga burkucatay 1960 muddada 25 sanadood ah aynu ahayn dal iyo dawlad xor ah waxaa hubaala inaynu gaadhnay guulo waaweyn oo inay luusiyey xanaftii iyo xanuunkiina soo gaadhay 31 sano ee aynu ka mid ka ahayn dalweynihii Soomaaliya waxaanu yeegleelay qaran taabagala oo buuxiyey dhammaan shuruudihii dawladnimo waxaanu tirtirnay kalitalisnimadii iyo nidaamkii ku dhisnaa amar ku taaglaynta waxaanu meel marinay doorashooyin xor ah iyo nidaam dimuqraadiyeed oo inaga dagan karaan dalal badan oo dunida laga aqoonsan yahay madaxweynaha Soomaaliland waxa uu sheegay in midowgii dhexmaray labadii dal ee Soomaaliland iyo Soomaaliya sanadkii 1960 uu burburay sanadku markuu 1998 May isla markaana aan la mahadin midnimadii Soomaaliyeed midowgii dhexmaray labadii dal ee Soomaaliland iyo Soomaaliya 1960 wuxuu burburay 18 May 1990 lamana mahadin midnimadii Soomaaliyeed ee muddada dheer la naawilayay nasiib darro waxaa laga dhaafay oo quran nacayb niyad-jab iyo naxal ku la dhex dhigay ummadii Soomaaliyeed ee hirow iyo kalgacalka isu qabtay haddii Soomaali wada noolaan kari weyday waxaa aqalga fayoobeyna farayaa inaynu iskeed u kala noolaato haddii wax la wadaagi kari waado waxaa furan in wax la kala yeesho sidaa darteed waxaan aaminsanahay in tala wanaagsan iyo talaba sax ay qaateen walaaladeedii Soomaaliyeed ee ku kala nool Djibouti Itoobiya iyo Kenya waxaan jecelahay inaan ku hambaliyeeyo hibirada toosan iyo horumarka weyn ay ka gaadheen dadka Soomaaliyeed ku dhaqan dalalkaasi madaxweynaha Soomaaliland ayaa si cilmiyeysan u sharaxay magaca Soomaalinimo ma aqaan inay tahay Soomaalinimadu siyaasad iyo sawir la wadaago hase yeeshee Soomaalinimadu waa si ka dhaxeeya ummad ballaaran oo aan dal iyo dawlad qura wada lahayn qowmiyadda Soomaaliyeed aanu ka mid ka nahay waxaa mideeya afka isirka iyo afka oo kaliya duco qabayaan marka dhagahayga ay ku soo dhacdo dhawaaqa Soomaaliya toos isku tiirsada jibadii qaali jirtay iyo jirkiina dubaaxin jiray walaalayaal xididkii daramayaasha xambaarin jiray waa idinkii jaray jiridiisii waxaan leenahay Soomaaliyeed gobolamadii la gardaadiyey iyo gaawihii la xulay geelii dalka ahaa
la isku siskay idinka guriyay gacalkayow gacantiina ku gaagixiyey walaalayaal waxaanu nahay gob sabirka iyo in la is-ixtiraamo taqaan ma nihin dad cadhahayso mana nihin dad calool xun iyo ciil kaba korayaal hase yeeshee waxaa habboon inaad garwaaqsataan xaqiiqda hortiinna taalla waxaa habboon inaad kala garataan shalay iyo maanta inay kala duwan yihiin dadka reer Soomaaliland waxaan idin leeyahay naftiinna ha ku maaweelinina mala awaal iyo been aan miscirintaan dhaaftisnayn sidaa darteed dadka iyo dalka aan odaga u ahay idinma soo socdaan oo way tashadeen oo duca qabayaan idinkuna isku tashada oo aan kala burxaan la'aan walaalayaal murti Soomaaliyeed baa tiraahdaa dambuu reer guuraa haddii aanu ahay shalay kuwii midnimada doortay oo isku darkii labada dal ka dambeeyey maantana waxaanu door midnay inaynu noqon dal gaara waxaanu dan moodnay inaynu kala noqono laba dal sidii aanu ahayn 56 sano ka hor waxaanu door badana inaynu noqon daris wanaagsan iyo gacal isdugsada oo nabad iyo niyad sami abad ku wada noolaada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka hadlay heshiiskii ay dawladda Soomaaliland dhawaan la gashay dalka Imaaraadka Carabta waxaanu sharaxay mashaariicda muhiimka ee heshiiskaasi ku jira gaar ahaan marsada Berbera dibadiska dekada Berbera waxay u ahayd bartilmaameed barnaamijkii waxqabadka xukuumadayda nasiib wanaag waxaa dhawaan la galay heshiis maalgashi iyo iskaashi ganacsi shirkadda DP World ee dalka sultanka Imaaraadka Carabta heshiiskan wuxuu dhaqso ugu horgeyn doonaa golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland si uu noqdo mid dhaqangal ah shirkaddan waxay sida ugu dhaqsaha badan u dhisi doontaa dekad cusub oo casri ah oo 400 mitir ah iyo container terminal sidoo kale wuxuu dib u hagaajin iyo qalabayn lagu samayn doonaa dekadana jirta oo u baahan dayactir badan intaa waxaa dheer free zone samaynta saylad ganacsi oo xora iyo dhismaha jidka isku xidha Berbera Wajaale oo halbowlo u ah mashruuca heshiiskan wuxuu wax weyn ka bedeli doonaa nolosha iyo dhaqaalaha bulshada Soomaaliland waxaa kale oo dhiirigelin doonaa mashaariic kale oo muhiim ah iyo shirkado caalami ah oo dalka maalgashi ku sameeya dhinaca kale maalgashigan wuxuu fursado shaqo u abuurayaa xoogga dhalinyarada ah ee dihin ee shaqla'aanta hayso wuxuu kor u qaadayaa xiriirka iskaashiga ganacsi aan leenahay dalalka dariska ah mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaay madaxweynaha Soomaaliland waxa uu daboolka ka qaaday in dawladda Soomaaliland ay qadarin iyo tixgelin u hayso dalalka dariska mudane iyo marweyn dawladda Soomaaliland waxa qadarin iyo ixtiraam weyn u haysaa dalalka dariska ah ee Itoobiya iyo Djibouti dalalka waxaan nahay saaxiibo iyo jaal aad isugu dhow cadowgoodu waa cadowgeena cadowgooduna waa cadowgeeda waxaan aaminsanahay in shucuubta ku dhaqan dalka geeska Afrika ay yihiin dad walaala ah oo dana badan wadaaga sidaa darteed waxaa maamulkay ka go'an inaanu xoojino xiriirka iyo wada shaqaynta dalalka dariska ah la iska kaashado adkaynta amniga la dagaalanka argagixisada warcadbadeeda tahriibka faqriga gaajada iyo kontrabaanka ama ganacsiga sharci darrada ah iyo wixii la mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ugu baaqay beesha caalamka inay aqoonsadaan qaranka Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka gaar ahaan dalalka midowga Yurub Mareykanka midowga Afrika jaamacadda Carabta ee dawladaha IGAD inay garwaaqsadaan qadiyadda iyo xaqa aadaka tashiga shacbiga Soomaaliland isla markaana aqoonsadaan qarannimadooda gabagabadii waxa ugu baaqay siyaasiyiinta madax dhaqameedka iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolka Sool in wada hadalku yahay waxa kaliya ee wax lagu dhamayn karo wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland oo kamid ahaa gudidii madaxweynaha Soomaaliland uu saaray qabanqabada xuska 18 May ayaa isna halkaasi ka hadlay madaxweyne waxa halkan kuugu diyaara
oo lagu soo diyaar gareeyay ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland hadday ciidamada militariga tahay booliiska ciidamada xeebaha ciidamada asluubta ciidamada immigrationka waxaa kuugu diyaara halkan ururada bulshada ardayda haweenka waxaa halkan kuugu diyaara madaxweyne dad ka socda bulshada ururada xaafadda caasimadda Hargeysa xaafadaha kala gaarka waxaa halkan iyaguna kuugu diyaara madaxweyne adiga iyo marti sharafta halkan fadhida libaaxii wasiirka daaqiligu mar walba keeni jiray Cali Maxamed Waran Cadde oo jiri jiray waxa kale oo halkan diyaar u ah oo iyaguna jooga waxyaabo kala fara badan oo maxaan ku raahdaa ay soo mari doona oo loogu talagalay dabaaldeganu halkan Hargeysa oo kuwa koolma degmooyinka iyo gobolada iyo jamhuuriyadda Soomaaliland dadkeedu meel kasta ay ku nool yihiin dabadaha ayaa dabaaldegan 25 guuradii uu ka maxaan ku raahdaa uu ka socdaa uu ka aloosan yahay maayirka golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ayaa isna shacabka Soomaaliland ku hambalyeeyay maalintan iyo qiimaha ay leedahay sida uu dhigay xeerka number 23 halkan waxaan u soo istaagay inaan idinka hambalyeeyo idinku salaamana ay dhimay oo ilaahda sanad wanaagsan Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdilaahi Cali Sudi telefishinka qaranka Soomaaliland barxadda hore ee qasriga madaxtooyada Soomaaliland